بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرتها وذا نقل السعوداي كسر دواد برنامج كانوا أنا كأجينو حول وضعنا ذا حفيز كحيرلان أنت قبل كمروديشه أي مناسبات بلارن وأي كسر دوينيان وحي قبتين حيرلانيها عصب دوان جديد عدالة أمك عوضي حفيز كحيرلان أنت قبل كمروديشه مدش أنا وحكسو قيب قلي حيرلانيها جود قرن كسوماليلان قدوميها محكمة الرفعانكا قدوميها محكمة قبل كمروديشه حيرلانيها هوري قبل كمروديشه حيرلانيها عصب iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka agaasimayaasha guud ee dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo duulistii hawada iyo marti sharaf aad u tiro badan madashaas madaxdii ka soo qayb gashay hadaladii kala duwanaa ee ay kaga hadlayeen oo u badnaa horumarka garsoorka uu gaadhay muddooyinkii u dambeeyay xukuumadda xisbiga kulmiye ku abtirsataa hoggaanka qaranka haysay ayay kaga warrameen sidoo barnaamijkaasi u dhacayna daawasho wacan oo wanaagsan waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Maroodijeex Cali Suud Diiriye runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan oo ujeedadeedu tahay in aynu ku soo dhaweyno xeeraaliyaha cusub ee Mawlid Axmed Muuse uu xilka kula wareegay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kelmadda kale aan ka oranayo hadal badan halkan ka oran maayo xeeraalintu markaan ay gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ama maxkamadaha xeeraalintu waa hay'adaha aanu shaqada tooska ah wada leenahay aanu sida tooska ah wada shaqeyno isla mar ahaanta xilku kuma cusba xeeraaliyahan shaqadu kuma cusba laakiin xilka ku cusub waxaan leeyahay maadaama ay shaqadu naga wada dhaxayso oo uu yahay xeeraalintu ay tahay factoriska ama hay'adaha aan wada shaqeynta joogtada ah wada leenahay marka la joogay laga hadlayo dacwadaha ciqaabta ah waxaan soo dhaweynayaa inaan wada shaqeyn wanaagsan aan wada yeelano ayaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa kulli xilkan loo magacaabay waa xil runtii maxaan ku raacdaa waa xil culus waxaan rajaynayaa inuu yahay xil uu ka soo bixi karayo aqoon ahaan iyo karti ahaan shaqadana in door ayuu soo hayay waxaan ku rajaynahay in xeeraaliyihii hore maxaan ku raacdaa xilkan la wareegayna waxaan leeyahay halka loo bedelay ilaahay ku asturo xeeraaliyahan cusubna ilaahay waxaan uga baryayaa in xilkan loo dhiibay isagana ilaahay ku asturo waxaan ku salaamayaa dhammaan marti sharaf ka soo qayb gashay xafladda tan quruxda badan ee lagu soo dhaweynayo xeeraaliye Mawlid Cabdi Muuse laguna soo gootiyo xeeraaliye Axmed Ismaan Mire oo dhawaan xilkan la kala wareegay marka hore hadalkii aan oran lahaaba waxa yiri gudoomiyaha maxkamadda racfaanka Cali Suud Diiriye oo ku hadlay afkii maxkamadaha gobolka Maroodijeex maadaama uu isagu yahay mas'uulka u sarreeya maxkamadda gobolka Maroodijeex anu waxaan leeyahay qura Mawlid Cabdi Muuse soo dhaweynayna oo la shaqeynaa maxkamadahan maxkamadda gobolka insha Allah waxa kale leenahay Axmed Mire Ismaan ilaahay bartaa lagu bedelay khayr kaaga dhigo qolada xagaara waxaan faraynaa in kula shaqeyn insha Allah وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. inta kadib waxaan ku soo dhaweeyay Cabdixakiin Maxamed Cabdi amilay wax been oromaayo waxaan leeyahay waxa ii muuqday in waa cusub u bilowday garsoorka Soomaaliland mar gudoomiye cusub baa guud ahaan loo magacaabay garsoorka oo dhalinyaro mar labaadna waxaan halkan marxaad ka marxaatinay maanta gobolka Maroodijeex markay noqoto laba dhalinyaro daayar aqoon-yahano cusub oo kalsooni buuxda ku qabanayaan karaan shaqada loo gmaday ayaa loo magacaabay marka taasi waxay ina tusinaysaa in waa cusub u bilowday garsoorka Soomaaliland waxaana nama leeyahay qiimeyn doona laga yaabaa sanadka bacdi in isbedel keeneen iyana halkii ka sii wadeen waxaan kalsooni ku qabaa in isbedel keeni doonaan waayo waxaan si fiican u aqaanaa Mawlid iyo labada gudoomiye cusub ee racfaanka iyo gobolka maxkamadda labada saddex maadaama si fiican u aqaano waxaan kalsooni buuxda ku qabaa in isbedel keeni doonaan wax kale oo ma waxaan ugu ducaynayaa ilaahay ku astro xilka loo igmaday waxay nala joogaa agaasimihii guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha runtii mahadnaqa ayaa maanta waxaan la qabnaa runtii dadkii hore halkan ka hadlay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa mas'uuliyiinta dhalinyarada ee lagu aamuday xilalka qaranka hadday tahay xeer ilaalinta iyo hadday tahay maxkamadahaba aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa
waananu ku faraxsannahay runtii xilkaa iyo waxa weeye waajibaadka loo igmaday. waxaan aad iyo aad halkan ugaga hambalyeynayaa sida laga warqabo dhalinyarada Somaliland ma aha markii koowaad waxa weeye xilal loo dhiibay, xilal badan baa loo dhiibay. waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali oo runtii u dambeeyey oo aan aaminsanahay inuu ka mid yahay dhalinyarada isbeddelka kusoo kordhin doonta dalka. baahi weyn bay dadka reer Somaliland u qabaan xagga garsoorka iyo cadaaladda. waynu ka wada warqabnaa jeelasheena ha noqoto, saldhigyada ha noqoto, maxkamadaha ha noqoto, runtii tabashooyinka soo taraysay muddo soo taagnayd baa jirtay oo ku aasaasnayd inaanay dadku waxa weeye had iyo goor ka warwaraan xagga cadaaladda ama aad iyo aad u duraan. marka tallaabooyinka runtii dabajoogaa la qaaday ee dowladdana waxa weeye ay ku dhiiratay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. waxaa caawi nala jooga guddoomiyihii iyo hormuudkii kulliyadda sharciga jaamacadda Hargeysa. waxaanu ku soo dhaweynaynaa kuna maamuusaynaa inuu yidhaahdo kelmadiisii guddoomiyahan Maxamed Xuseen. run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay isbeddelkaa muuqda ee la taaban karo ee ka muuqda garsoorkii marka ay noqoto bahdii sharciga oo dhan, si gaara xeer ilaalinta oo isbeddelka aad ka garan karto nambarkii cishadii dhoweyd la eriyey xeer ilaalin kaliya ku jira. taasi waxay tilmaan u tahay ama ay tilmaamaysaa habka loo kala horeeyo. waxaan aad iyo aad run ahaantii halkan doonaya inaan uga sheego kelmad baa waxa ay tidhaahdaa marka aad aragto maamaah weeye waa Greek. haddii aad aragto dadka aad isku shaqada tihiin ama aad isku xirfadda tihiin oo nambarkoodu bato waxa soo dhawaaday waqtigii isbeddelka. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in isbeddel muuqdo. maalintii kulliyadda sharciga la bilaabayay iyo maanta waa la taaban karaa. waxa weeye garsoorku inuu isbeddelo mudday qaadatay. waxaanu ka soo bilownay meel hoose, maxkamadu mar aanay askari haysan, garsooru cid ilaalisa aanay jirin, nidaam lagu shaqeeya aanu jirin. laakiin dadaalkii wuxuu keenay inay soo baxaan dhalinyar ka soo baxday jaamacadda Hargeysa. dhibaatooyinkii ugu badnaa ee markii ay ka baxeen jaamacadda laga qabsaday waxaa ka mid ahaa shaqo u raadintoodii. run ahaantii hay-adihii iska xil saaray oo cabdixakiin ku jiray UNDP markuu shaqaynayay iyo xasan oo xeerlaaliyaha guud ahaa waxaan dadkii ugu horreeyay aan ka tashanay ee ku dhawaaqay isbeddel muuqda in laga muujiyo garsoorka. way yareed xagga garsoorayaasha in la magacaabo, laakiin xeerlaaliyaal baa la magacaabay. waxaa kaloo lagu dhawaaqay markii ugu horreysay taariikhda Somaliland in habluhu ay noqdaan xeerlaaliyaal. gabadhaas waa la yidhaahdaa xagga dambe fadhida ilaa UN New York iyo Copenhagen sawiradeeda ayaa waxaa la yidhaahdaa the first female loo magacaabay garsoorka Somaliland. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Obama oran jiray I have a dream, laakiin dreamkii inagu waynu xaqiijinay. waa reality meesha jira oo la inkiri karin. aad baan ugu hambalyeynaya dhammaan bahda ka hawlgashay. xil adag baa ina fuulay. xilka adag ee ka soo bilaabmaya guddoomiyaha maxkamadda sare oo ah macallinkii maxkamadaha racfaanada oo badankooda ardaydii jaamacadda Hargeysa ay yihiin, gobollada iyo degmooyinka. dee xilka ina fuulay waa inaynu iska geejinaa. sharci yaqaanada xagga looyarada laftoodu dhalinyarta qaar baa doortay inay looyarnimo ku shaqeeyaan xirfadda looyarnimada. kuwa laftoodu waxay u baahan yihiin inay bahdan noqdaan oo shaarkii hore la iska bedelo la xidho shaar cusub oo run ahaantii u gargaaraya cadaaladda iyo akhlaaqiyaadka mihnada aynu ku shaqeyno. waxaan mar labaad u hambalyeynayaa labada xeerlaaliye ee isbedelaya, kala soo dhaweynaya iyo kala sii sagootiyana labadaba waxaan leeyahay ku soo dhawaada. waxaan inoogu soo dhaweynaya oo inala jooga wasiir xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka mudane cabdiraxmaan yuusuf ismaaciil. bismillaahi raxmaani raxiim. xeerlaaliyaha guud labada xeerlaaliye ee ay xafladani daaranayd axmed iyo mawliid, guddoomiyayaasha kale ee maxkamadda racfaanka iyo gobolka, agaasimayaasha guud ee dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo duulista hawada,
dhammaanba haddiinan kale ee garsoorka iyo aan filayeen xeer ilaalinta u badan yihiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa haddii aan ka gudbo kolley aniga kelmaddeedu waa kelmad waayeelnimo oo dardaaran ah. waxa weeyaan cadaaladdu waa meel ay ummaddu aad iyo aad ay ugu qabto runtii baahi weyn oo loo qabo awgeed dadku aad buu isha ugu hayaa isbeddelkan cusub ee yimid hadday tahay maxkamadaha iyo xeer ilaalinta dhammaanteed waa mid loo hanwen yahay oo dadku runtii aad moodo inuu waran ka go'ay oo qof waliba aad moodaysa bulshadu marka dee eegto bulshada dhexdeeda aad loogu faraxsan yahay. anigu waxaan leeyahay kelmad waayeelnimo ducaa war hawsha ay haysaan waa hawl adag oo qofkii ilaahay ku xil bixinaya uu ka bixi karo. waa idinku ducaynaynaa ilaahay ha idinla garab galo, ilaahay ha idinku xil tiro. ummaddu meeshay eegayso iyo meelaha kale way kala duwan. war aad baa isha laydinku hayaaye waana laydiin hanweyahay waanu idiin ducaynaynaa ilaahay ha idinla garab galo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. xilaaliyihii hore gobolka Maroodijeex ahna hadda xilaalyaha gobolka Togdheer Burco mudane Axmed Cismaan Mire. waxaan aad iyo aad maxaan kula ugu faraxsanahay in namadatan ama tiimkan xeer ilaalinta ee caawa xafladan suura geliyay cidii ka gacan siisayba ee anigana ay sagootinaysa mawlid yarana iyo maxaan kula hadaal kuleynta kala soo dhaweynaysa aad iyo aad ayaad maxaan kula soo satisfied aan way halka la bedeliyo halka kaleba madaxdayda iyo maxaan kula hadaal ku qaranka hadaal kulila madaxweynaha madax ilaa mujo xiralayahayagu sida la wada arkayo la sheegayo waxa xaqiiqa balad ma fahamtay inuu maxaan kula waajibkiisii gutay baladimada waxa yagii hore waxa sida isugu kaayahayo ninkii alam tiro soo dhaafay shaqaysan waayay ee banaanka la taagana isaga iska kashifan arrimaana ilaahay baa maamulo oo leh oo qofku halku marayo wuxuu ku dambeeyay sidoo noqonayo wax walba ma garanaysaa hadii dadkan dee waa iska makhluuqaad sidaa daraadeed aad baan idin salaamaya abaabulayaashii والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عصب قبل كمرجح مولد عبد موسى سينو يا هذا يسوون كلمة ديسي حراريها. runtii markii hore waxaan aad iyo aad waxaan balan ku mahadnaqay xiriirada gudaha qaranku xilkan u dhiibay ee u soo jeediyay guddiga cadaaladda waxa kale oo mahadnaqay guddiga cadaaladda ka aqbashay in la xilka uu xiriirada guudii dhiibay aad iyo aad runtii ugu hambaleenaya. halkan waxaa fadhiya asxaab badan oo xafiiskaygiya oo xeerayaalo dhalinyaro ah oo ciidda ka badan waxaan xasuustay xiriirada gudaha qaranka markii xilka loo dhiibay waxa xafiiska hore ugu sii hawlgeli jiray nin ku xigeen xeerale guuda cali maxamed cali oo imka horta soo fadhiya wuxuu ahaa ninkii koowaad ee dhalinyarta hadday maxkamad noqoto hadday xeeraale noqoto aan ugu tagnay garsoorka xeeraanta runtii calimo wuxuu igu waxaan u baxayaa Uganda waxaan yidhi maadaama cali yoonad baxas haatay booskagan buuxiyo waxaan u xeeralaha guuda qaranka xasan maxamed cali oo xeeralaha guuda qaranka runtii marka sagu soo galay wuxuu igu yiri oo hadda xasan wuxuu xiriir guud qoran wuxuu macallinkayga jaamacadda wuxuu xagee joogtaa waxaan ku yiri xeeral waxaan ay sarkaal ciidanka police ka tirsan waxaan joogaa qaybta CID wuxuu ku hawlgeliyay yaa kula joogo buu yiri waxa joogan ku yiri waxa jira laba hablood oo markaa inuu police ka ahaa oo aswan ka mid tahay iyo inaan kula sacdiyo leeyahay marka Mareykanka ku maqan waxa kaloo jiray Yusuf bin Maxamed oo xeeralihii hore gobolka Galiiley imankana xeeralihii gobolka xafiiskayga iyo Cabdiraxmaan ibn Maxamed oo ninkan imkaan la xiriirinay xeeraliya xeeraligu wuxuu igu yiri shantii sida mawlid oo igu yiri labadaynana maalinta sabtsanay kala labada habloodna la soo wareegay runtii xeeraliga guud waxa markasta ka go'naa inuu xafiiskiisu noqdo mid isbedel ku yimaado maantana waxaan nahay shande oo nasoo hawlgeliyay maantana dhowr iyo 30 ku xigeen xiriir guud badan iyo shaqaalayaasiniyaal ayaa ka hawlgala jaamacadeeda intii aad iyo aad baan ugu hambalyeeyay xiriirada guud asxaabteeda soo qaban qaabisay xafiiska xeelaanta xafladan sharafta la soo qaban qaasina aad iyo aad u mahadsan yihiin waxa kale oo aad iyo aad mahadsanaan ka hambalyeynaya asxaabteeda kale oo runtii ku rag badan oo xaalka horta soo fadhiya jecel horumarka
iyo inay dhalinyartu wax qabsadaan waxaan ka xusi karaa saaxiibkay mukhtaar cabdi ciise isna kaasoo fadhiya waxaa kaloo ilahay u hambalyaynaya xeeralyahaygii hore ee gobolka togdheer axmed oo dhinacayga fadhiyo xilkii kala wareegay runtii axmed wuxuu ahaa xeeralyaha u qaaliya in badan oo soo wada shaqaynay wuxuu ahaa xeeralyaha waan u jecelahay markaa runtii aad baan ugu faraxsanay xeeralyahaga waanu sii sigooteynaa waa nin khabiira waa nin in badan soo shaqeeyey waanu la tashan doonaa anugu gaar ahaan dhaqan baa iska jiro qofka marka xil loo dhiibo qofka uu xilka kala wareegay ma qiimeeyo wuxuu israadaa niyo qofkan kula dhigaa ama aad xilka reegto isku mid wax ka weydiin annagu waxaan leenahay xafiiska xeeraantu anugu weli madaxii xafiiska xeeraanta maroodo jeex haddii aan ahay xeeralyaha hore xilka kala wareegay wax kasta oo taliyo tusaale oo waaya aragnimo ah isagoo gobolkiisa jooga waan kala tashan doonaa waana weydiin doonaa waxaa kaloo halkan aan ka ballan qaadayaa kolley markastoo isbedel yimaado maadaama laga dhawaajiyay bahda maanta in xeeralyaha gudoomiyaha guddiga cadaaladda iyo dhammaan xubnaha guddiga cadaaladda runtii waxaa ka go-an mar kasta inay sameeyaan isbedel lagu sameeyo bahda cadaaladda runtii waxaan maanta aada u jecelahay xafiiska aan la wareegay waxaan ku hamiyaya maanta halkaa uu taagan yahay inaan kasii dhaqaajiyo insha allahu tacaala waxaan rajeynaa wax badan oo qabsan doono dhammaan mas-uuliyiinta xafiiskan imika madaxdan ka hawlgasha raggii hore waaya aragga ahaa xeeraalayaasheeda hore dhammaan asxaabtan dhalinyarada ah waxaan jecelahay annagoo gacmayaga haysana annoo la wada shaqayn doona in aanu wada dadaali doono waxaana idinka codsanaya xilkay igu ducaysaan wada shaqayn wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu runtii waxaan iminkana u gudbinaynaa gabagabadii xafladeenna waxaan kusoo afbeeraynaa si uu inoogu soo gabagabeeyo xeraalyaha guud ee qaranka mudane xasan axmed aadan dhammaantiinba waad salaamantihiin intaa kadib kolley hadal badan caawa male waayo xafladdii kala wareejinta markii aan joognay ayaanu in badan oo shaqaalihii iyo xeeralaalayaashii ay joogeen baanu kaga hadalnay ha ahaato sidoo kale markii guddoomiyaha maxkamadda gobolka maroodi jeex uu la wareegayay iyadana aniga iyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xubnaha guddiga cadaaladda iyabaa ka qayb galnay caawana waxay yidhahdeen waa bahdana casha gaara casha sharaf gaara oo ninkaana kusii sugoteen oo nagala soo qayb gal tii baanu ayaanu imika aynu u fadhinaa waqtina kale wuu nagu socdaa anigu runtii waxa weeye isbedeladan aan sameynay waxaa horseed ka ahaa oo runtii isaguna magaranaysaa aan jeclaa caawa inuu halkan yimaado guddoomiyaha maxkamadda sare aadan oo dhinacii garsoorka wada matalayay waxaan la kulanay muddadii isaga la magacaaben anagoo iskaashanayna madaxweynaha guddiga cadaaladda oo dhammaantooda ah waxaan la kulanay madaxweynuhu nagu dhiirigeliyey isbedelada iyo nidaamyadaasi waxaa kale oo ballan qaaday in wixii muxuu ahaa mushaharooyin iyo gunooyin wixii lala qaban karo garsoorka sanadkan in lala qabto oo miisaaniyadda qaranka iyo meelaha kale ee uu baaqaagisa gaari karo ha noqoto hay-adaha iyo meelaha kale la gaarsiiyo isbedeladani runtii waxay anaga xaggay xafiiska xeerlaanta awalba laga soo bilaabo 2012 markii madaxweynuhu ku dhawaaqay reformka garsoorka waan la janqaadnay dhalinyaro fiican baanu keennay dhalinyaradaasaan u danahayn un da-da dhalinyarada macnaha sida xagga siyaasiga loo qaado muxuu ahaa ciyaaraha iyo meelaha kale iyo laleeyahay dhalinyarada saraha loo qaaday waxay tani mid ku xidhan xirfadda oo waxaanu ka eeganay dhalinyaro ka soo baxday ayaa keentay xagga aqoonta oo jaamacadka ka soo baxay taas baa ayaa keentay inay noqdaan niman dhalinyaro ah laakiin ummadda iyagu wuxuu ahaa bartilmaameedka iyagu in la helo aqoon-yahan aqoon-yahan buu ahaa amba daa yaraado amba ha weynaade nin aqoon-yahan oo jaamacad ka soo baxay xifradan qualification baanu ka hadlayn marka qualificationki baa nala galay inay noqdaan dee nimankii ka soo qalinjabiyey dufcadihii ugu horreeyey ee jaamacadaha inay noqdaan niman dhalinyaro ahoo ayaa keentay marka ambaha kaga soo baxan dalka gudihiisa ama dibaddiisa qualificationkaabaa wuxuu yidhi garsoor dhaba si loo helo waa in la helaa xirfadda aqoonta dad ehelo ah oo aqoontii leh taas baa markaa garsooryaallo way noqotay
xeerarayaalna way noqotay aniga markaa tallaabooyinkii ugu horreeya muufka ahaaba ahaa halkii inkii iid mawlidiya ka sheekeynayeen nimankii iyagoo haddana buliisa oo haddana muxuu ahaa aqoon-yahana oo jaamacaddiina ka baxay inaanu isla helno oo aqoontiina muxuu ahaa xirfadiina si fiican u garanayo prosecutionkii inaynu dhiibno xelalkii garsoorkan ku magacowno marka gabdhuhuna waxay noqdeen gabdhihii la socday oo iyaguna markaasi dee shantoodii ka mid ahaa marka aad baa tallaabadaasi maaragtay ay u dhiirigelisay garsoorkii oo dhanba heedaha iyo ururada caalamiga ee nala shaqeeyana aad bay uga heleen niman dhalinyaro ah oo aqoontii leh weliba gaar ahaana gabdhihiina inay kaalin fiican iyaguna ay ka qaataan garsoorka kale ee dalka garsoorayaasha laftooda niman dhalinyaro ah oo aqoon-yahan oo jaamacadaha ka soo baxay ayaa marba dufcad loo qaatay oo tababaraynta la siiyey soo galay laakiin waanu kala duwanaanay ana waxaanu kaga faanaynaa intii noo soo gashay ee aanu qaadanay een marka horena shiilay imika waxay marayaan 35 ayay marayaan ku-xigeenna xeerlaaliye guud xafiiska xeerlaanta guud loo qaatay waxay noqdeen niman aan wax isbedeli ku dhicin niman halkoogii taagan oo tareerinada aan siinayno iyo aqoontii aan siinayno runtii si fiican u qaatay tababaro badan baan la helay hay-adaha UNDP UNODC EU safaaradda ingiriiska Horizon Institution imka joogtaa tababaro badan oo xagga sharci shuruucda noocyada kala duwan ay qaateen marka waxay isla heleen aqoontoodii jaamacaddii job trainingkii ay qaateen iyo dadnimo ay la yimaadeen runtii oo de taasna waxaa dhaliyey leadingka horta aanu ku helay leadershipka amba hogaaminta aanu ku helay runtii mar walba ku iskinkaraynay oo ku toosinaynay iyo raggii waayarag ahaa ee meesha ugu yimaadeen runtii miro iyo ka mid yihiin iyo rag kale oo gobollada jooga iyo xaruntaba oo iyaguna runtii ka qayb qaadanayay muxuu ahaa toosintooda laakiin raggii garsoorka galay rag badan oo galay oo aanu jeclayn ragga kale in iyaga la eriyo haddii dee cid amba reform lagu sameynayo oon kaalintii la qaadan ba haddana daaqadda ka baxay oo dhex fadhiistay oo day ugu wacan tahay may helin qacanqabashana helin hogaamin bayna helin waxaana helin job trainingkii faraha badnaayna may qaadan toosin iyo la xisaabtan dhabaan accountability baa meesha ka baxday marka taas baa keentay inuu nin walba meeshuu isagu dee dantiisa ah ama siduu moodo inuu yahay uu bala jaan qaaday ana waan ka xumahay ragga ay seeftu qaaday dhalinyarada iyagaba laftooda ahaa aqoon-yahanka ahaa ee ku dhex milmay garsoorkii sidii aan la doonayn aanan uga soo bixin inta dambe waxaan fili doonaa haddii aan la yidhaahdo inay cashar u tahay intaasi inay isla garabsan doonaan kuwa kale xeerlaalinta inay isla jaan qaadi doonaan si ay dal maryeemaka uga soo baxeen waa raggii iyagu badweyntii markii ay bug iyo dam tiri is adkeeyey ee ka soo muxuu ahaa runtii ka soo baxay imika wixii ka dambeeyay dariiqaas baa lagu duwaya accountability-ga baa soconaya nin walba fayl baa loo furaya nin walba dacwadiisii wuxuu qaadayaba ayaa de guddiga cadaaladda iyo dee lagula xisaabtamaya marka taas baa keeni doonta inuu qofku control galo inuu markaasi is ilaaliyo inuu markaa anaguna waxaanu de ku dadaalaynaa in alla intii aqoonta sare loogu qaadi karo in alla intii muxuu ahaa mushaahare iyo gunno iyo deenu la wadi karayno gobolladii oo dhan ba imika meel walba dhalinyaradaasi gaadhay maaha hargeysa oo keliya halka imika tanagu cusub waxa weeye dee walba ay ku jireen hogaamintii lafteedii madax xafiiseedkii ayay imika ka qayb qaateen oo dowladda imika ku jira horena markii hore yuusufan gobolka gabiil ayaan u geynay gobollada dhan qaar baa jooga oo halkan kulbaan ku jecel lahay inay intan ka muf karayno aad waa aragnimo fiican u qaataan inay gobollada kale hantaan oo ay qabtaan taa macnaheedu maaha raggii hore meesha ka saaraynaa anaga horta maxkamadda saraba waxaa ka doodaba raggii hore xarunta ayagii la joogaan ragga gaamuri miroo kale mid waxaa waraa waxaad geysiidan halkan xarunta anagtaada joogay waayo de kiisaska halkan lagu saxeeyo ugu dhibta badan waa ilaa maxkamadda sare point of law oo taagan tahay oo garsoorayaalkii maxkamaddii sare capacity-gaas marna anagu lama neyno aqoonta
dadka way aragnimada ku helay amba aqoonta ku helay akademiga amba jobka ku helay raggaas baa walba mar walba haynaya liidinka taa macnaheedu yaan loo turjumin inay ka baxayaan meesha dee waxaan ku eegaynaa balada meesha meelahan hawsha badan ee dhibta badan ay taagan tahay dhalinyarada kale lafteeda jaamacadihii aanu u magacawnay garsoorayaal dee kuwo kaloo iyaguna bal xeerlaanintii oo hogaamintii madaxii xafiiskii qabtaa gobolladii qabtaa oo hogaamiya oo bal iyagana lagu eego waayaan waxaan hubaa raggaasi khaladaad u dhacaya weligina uu jiraya inaanay noqonaynin dad bias ah oo corrupted ah oo inaanay leexanin baan ogahay ragga iminka ninka aan keenay amba kuwa kale ee anuuna weynahay inaan meelaha keenno waayo balwado ma leh ninku hadduuna balwad baan horta marka hore aanu lahayn hadduu qabiilka saafi yahay oo dhalinyadiisa raggiisa la jaanqaadayo waxaan hubaa ilaahiisna uu ku kalsoon yahay shantiisa waqtiga salaada iyo iimaankiisana ku socdo in wixii khaladaada ka dhacayo taana waa loola toosinayaayo waa loola joogaayo dakhaladku waa waxa loogu talagalo ee abiilka laga qaadanayo ee sii soconayo ilaa maxkamad sare amaba anagu de markuu nala yimaado kiisa saadu culus yidhaa war sidaan yeelaa amaba nala imanayo de kuwa xarunta jooga ee odhanayo sidaas baa jirtaan qodobkaa iyo halkaa bal halkaa wax ka wad marka toosinta mar walba waa wax soconaya gabdhaha aad bay iyaguna kaalinta rool fiican bay ka qaataan gabdhaha aad iminka aad maaragtay doodooda iyo maxkamadahooga iyo ka qayb qaadashadooda aad loogu ammaano anaa iminka kala saarsaaran hablaayo iyo aad iyo aad u badan tariirnimada qaatay aniga waxay cajiib ugu noqotay mar dhuutan jabuuti tegey waxay raacay mawliid iyo ninka halkaa okiyaalaha xidhanay cali oday waxa weeye raggii ugu horreeyey ee aqoon-yahanaha ee jaamacadda ka soo baxay tababarada fiican qaatay ilaa Uganda master ka soo sameeyay haddana tariirinada aad iminka ugu dhex jira waxaan soo wada tagnay muxuu ahaa Djibouti scenario la sameeyay kiis tusaale ahaan virusiga ama balcadada la xiriiray labadii waa la joogay midna garsoor iska dhigay midna wuxuu iska dhigay lawyer oo guruubyo Seychelles Mauritius Tanzania Uganda Djibouti dad badan oo ka yimid garsoorayaal iyo xeerlaalaha ayaa la isku dhafay markaas la deedo kuna saddex kala gala marka midna wuxuu iska dhigay xeerlaaliye midna wuxuu iska dhigay lawyer anigana waxa laga dhigay garsoore oo oday Seychelles oo culus iyo raggaas baa la raacay leeyahay balada adiguna xagan kale balada wax ka jil xeerka lagu socday xeerkeedii procedure-ka caadiga ah ahaa tan kaga duwaneen Soomaalida kale meesha iyaguna yimid waxay ahayd xeer baarisi ah oo ay approve gareeyeen muu jirin xeerkeena lagu socday xeerka baarisiga ee Somaliland ay baas gareysay ama transfer of prisoners ka maxaabiista isku gudbintooda coastal guardki xeerkeeni coastal guardka oo isaguna draft ahaayo golaha wasiirada yaalay ayaa isaguna meesha yaalay marka tusaale waxa laga dhigtay Somaliland ninkii markabka saarna cadaanka German barba markab German ma waxa waxay metelayeen ciidankeena coastal guardka oo luqadda Ingiriisiga ku haya territorial waterkeena inay ka qabteen markabkaasi ordaya ama doontaasi oo qoladii badbaadada dooriyanayso inay iyagu gacanta ku dhigeen deekiiskii soo bandhigayeen waddanada daawadeen intaasaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii aanu ku eegaynay munaasabadda soo dhaweynta ay loo qabtay xeerlaaliyaha gobolka Maroodijeex oo dhawaan ay guddida cadaaladdu u magacowday xafiiska xeerlaalinta gobolka oo madax badan ay ka soo qayb gashay intii barnaamijkan oo kala ku kulmi doono waa dhinaca sawir qaadida oo Khadar Abiib Ismaana iyo dhammaan hawlwadeenada telefishinka qaranka Soomaaliland oo meel kasta joogtaan bay idinku dhaafaya assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.